cifaaf iyo dhowrsooni baad ku heshay adigu suuqa ka soo qabtayo hablihi iyo farabadan ayuu ka soo xushay badqabka ragu waa basashada dumarka ninka $700 baan ku shaqaystay buri laba bilood saddex bilood uu rusado $900 goor buu iyo goynaysa ina sootan faqiir baan ogolahay $900 soo guli oo dhiibka aabaha waxa kaga darado guriga iska balmo ku fadhiyo guriga waan joogaya dhageyso gabadhu inay rubuc nin ay hesho ayaa uga khayr badan inay la guriga fadhido in ka badan baa la soo koriyay waxbarashada laga bixiyo boqolna waan ku dhalayaa marka horta gabadhu kaligeed ma baahna labada qof way isku baaxayeen saadaha 9 nin baa ka shaqeysan dumarku iyagu naftooda runta uma sheeg waaqicana kuma noola anigu waxaan aaminsanahay hadda maanta gabadha ku tiraado tuulo yaro degmo yaro kan ayaan degaay ma ila degiisa kulma degiso sanduuqad baan haystaa ila kulma degiso ma fahamtay doodortay balaaran tahay laakiin hablaha oranaya nin kastoo wanaagsan gabadh baa haysata doodan maxaa hablaha ka keenay waxa ka keenay waxa weeye wax kale ma aha horta ninka reer soo maray ama ninka reer leh sirta dumarka uu yaqaana halka uu nugusheena uu yaqaana hadalkan afka baarkiisa kaana uu yaqaana waana waxyaabaha keenta ninku markuu yiraahdo gabadha lacag bay ugu xidhay maxay bay ugu xidhay gabadhu adi jeer waxbay kugu eegaysaa gabadha lacag bay ku eegi hotel bay ku eegi maxay bay qaar badan intay wax kasta ogolaato gurigaada dejinaysa mar soo eega imika decoration maleeyay markan ka bedel wax kasta waa lagu eegaya laakiin waxay eegaysaa halka aad ka gaarsiisantahay qofka inaad ku tiraahdo qofkan waad qancin karto gabadhu inaad wax siiso waxay ka jeceshahay qancin karto marka dooda sagaasan ka baxaya ta kale waxa weeyaan ay sheegayso walaasho rasuulka kaleey salaatu wasalaam jacaylkiisa uu qeybay 9 dumar uu qeybay waxyaabaha qaarna waxa jirtay xadiiska rasuulka kaleey salaam nagu lahaa ilaahayow qismadaadii ay amartay waaniga u sameeyay laakiin cadaalad waxa weeyaan haddaan dhinac fala taluuman ilaahay ugu canaanan buuri wixii xagee faraha ka baxsan wada jir qalbiga bini'aadamka lama xukumi karo taas iyadu taasay noqonaysaa haddii ay loo soo noqdo dumarku hadii jir wax ku celinayaan ninkan duruuf baan ku soo galay ninkan anaa soo korsaday dumarku maxay koriyeen 4 sano qaar haya 3 sano haya 3 sano wax lagu xisaabtama hooyadii 30 sano haysay qaar 30 sano haysay qaar 20 sano haysay hooyadii baa idu lagaaga soo tagay hooyadii 20 sano joogtay guriga ka timday gabadhaad maanta baratay baad guriga kula nooshay marka gabadhu ninka xagee uga dhigaysaa nin ay korisay nin ay wax siisay nin ay abaal ku yeelatay nin ay waxba abaal kuma yeelanay adigu bal abaal kugu leeyahayo cifaaf iyo dhowrsooni baad ku heshay adigu suuqa ka soo qabtayo hablihi iyo farabadan ayuu ka soo xushay in jamacada argaysa soo hormaray load habla idhaaf ma wallahi ani baan naxaymaysa waxaan hablay oo maqan duwaa run waxa meesha way imanaysaa habliyahan iminka halka waxa laga yaabaa meel kasta habla inaga badan aan waxaan aaminsanahay badqabka ragu waa basashada dumarka marka qofka ninka haduu rabo inuu badqab noqdo dumarku inuu basado waxaan go'aan tan kulay wax waliba iyada uga wanaagsan sirtan hada mar dumarka sirtooda faanto oo habdhaqankoodu wanaagsan marka dhalinyartiin wuxuu baahan koorasi la siiyo arimaha qoyska gabadha ma kula shukaansanay qaabkeebaad wax ugu qancin kartaa qaabkeebaad wax ugu dhaadhicin kartaa ninka $700 baan ku shaqaystay buri laba bilood saddex bilood uu rusado $900 goor buu iyo goynaysa maxaa kalifay 900 ku guursanay ha ku yeelisa sawtan miiska taagan ba ina sawtan faqiir baan ogolahay 900 soo guli oo dhii ma karfo 900 gashay udii waxa laga boqolaysaa 900 gashay 900 maya anigu waxaan idhaahday ma oran dee lacag ma cayimin walaalahay khasbina dee anigu maxaa idhahdaa man dee cayimin lacag laakiin anigu waxaan aaminsanahay kartidayda inaan ninkaga soo saari karo kaga soo saar ma wuxuu hayaa maanta $300 buu hayaa hagbad meel ma taalo guri hantiya ma haysto 2 bilood 3 bilood buu lacagtiisa ururinaya سما كو قناعسن tahay $900 ما لسن دغيس walaalo kama ururigid سعد دوق reality ga nimanno kama ahay la dhaado gabar kasta af macaani ma jirto tusaale wayada bulshada matalisa ada bulshada matali u dhim karfoonka hadal wala sheeg gabar reer ku soo tabcay oo iskuulkeedii iyo dhalaanimadeedii iyo korinteediiba lagu soo tabcay
waqtiga inta la maxad u leedahay xukuma ayada cidiba gabadh kale wax ku fashan hayad adigu adaba tacabka aabaha waxa kaga darado guriga iska balmo ku fadhiyo gurigeyga waan joogayaa dhageyso gabadhu inay rubuc nin ay hesho ayaa uga khayr badan inay la guriga fadhido gurigeyga waan joogayaa gurigeyga waan ku soo noolaa rubuc ku siinayo rubuc waana ku qanacsan tahay gurigeyga waan joogay 9 lagu soo meheriyay maaha in ka badan baa la soo koriyay waxbarashada laga bixiyay boqolana waan ku dhalayaa markaas dabada ninka 900 inuu ku tiraado hooyo gobol gursanaysa guriga culeys baad ku haysaa culeys wada ka dhaqaajisan aan ku jawaabo walaalo aynu kala mikrofoonka hayi aan ku jawaabo markan aad leedahay adigay dan kuugu jirtaa inaan ahaana inuu ninku ku guursado dahayo dan kuugu jirtaa ii dhageyso iguma jirto hooyada iyo aabahay maanta waxay ii dhageyso ku jawaabo ii dhageyso waxay qanciyaan hablo hay qasbin fikirkayga kugu jawaabaya hooyada iyo aabahay maanta waxay iigu soo tabcaynsan iyaga ku nasin lahaa noloshay maanta aade yani waxay rabaan hooyaday noloshay ku soo nooleedo kale inaan ku noolaado nolol qurux badan oo fiican sidee markaa de inaan maxay dhaqaaqo nin aniga aan ii fiicnaynin ima guursanay de fiicnaashu ma maxay de anu maanta nin baa jira ninka baahida uu qabo adna waad u qabtaa bal adaaba uga baahi badan ba uguma baahi haduu ilaahay siiyo waa dhalaya guriga hooyada ma fadhii kartaa way nin laan ku fadhiisa 20 jir iyo 30 jir ku fadhii sabab seenan soo dhigan ku fadhiya in kaba nin laan soo dhigan fadhiya بسم الله waxaan jecelahay wixii su'aasha markaad qofka ama aad aragtidaada dhiibato iyagana inaad u dayso aragtidooda ay kugu jawaabaan su-aashaasaan ku noqonaya hadalka badan lisay horta gabadhu keligeed ma baahnaa labada qof way isku baahan yihiin labada qof isku baahan yihiin adiga ay baahan ku baahan labada qofna gabadhani gurigii hooyad kaligeed ka weeysan gurigii hooyad ka weeysan iyadoo ka weeysan waa isku soo guur lagu sheegay waa la isku soo guuray waa sax way faantay lacagta lagu sheegayaana ma hal wax weyn ma ha wax la ciisaynayo laakiin waxa ka khayr badan labada qof oo si dhaba isku aamina hasoo qadin aamintu waa tane hada sare fadhidaabe waa ta 900 diidan bilis iyo dhageyso walaalo ha khasbin inay adiga qasab ku qaato 900 labada qof ay wada sheekaysanaya labada qof ay wada sheekaysanaya waxaan aaminsanahay 900 bay barta dhigaan way jeclaadeen jacaylka ka weyn iyagoo isjeclaado war 900 ma ah aw ii flash dad inoo heshid qolna inoo kire ayaaba ka qaalisan 900 tan soo qadimaysid halka inoo dhig qolkooda gashi halka dhageyso shan qol baa waxaan ku jawaabiye oo qol fadhiya dhageyso yaa ku dhamaystirno $100,000 guriga qarash galaysan de hada ka dhageyso walaal raali waxaan ka aan ku wuri baa raali ka tahay ana ku sheegayso waxa raali ka hay ninka jeclaaday isna way jeclaaday daacad baan noqonay daacadii waxaan ku noqonay 900 barta iska dhig annagu raali waxaan ku noqonay isagu waxba ma hayo waan ku garay inaan gidaar wada seexano inta waxay sheegtay war ana raali kaan aabahayana ula taliya ko dhageyso marka waxaan ku sheegay waxaad isku qadimin baan ku sheegay Soomaalida hore uma amaade saddex baa lagu kabaa baa lagu yiri arrinku hadduu xumaado aamus baa lagu kabaa dadkeen xikmad iyo aqoon bay lahayd iska dhayo maaha arrinku hadduu xumaado aamus baa lagu kabaa cuudku hadduu kaa yaraado adduunkii xaqiiqda runtaan kuu sheegaya adduunku cuudku hadduu kaa yaraado adduun baa lagu kabaa anigu ninkan anaa doortay isaguna isagay raacay lacagta imika halkan ma taalo imika barnaamij baa jira facebooka ka socda ma ka heshay gabar tiraahdo israaciisa calaftoon way isku dartaa imika inankaan isla baxnay waxaan nusniyey waxaan ku raali noqonay hadduuna waxba aysan ka helay wala waan ku jecelahay ilaahay dartii bay isku jecelahay ilaahay dartii isku jecelahay bulshada ka hadal war dhageyso ha qasbi qofka saalax aqalku hadduu xumaado ardaa baa lagu kabaa waxaan kuu sheegayaa mar walba dhaqankeena haddii lagu noqdo culturekeennii adduunku waa isbedelayaa culturekeenu wuxuu ku salaysnaa diintu rasuulka calayhi salaam qofka afar ku raac baa la yidhi afarta lagu raacayo waa diin waa akhlaaq
ومال يا نصبيات انت بينك دول بك يا رئيس كتب بالك انت ما كتب بالك ما عنده واحد الشيء قصه دعوه ما عنده قصه واحد قصه ما عنده واحد دعوه هي ان عادي ما عنده قصه دعوه قبل با ادو قصه soo soo dheereed laakiin nin fanaana oo hees arooskee ka heesa 5 kun dollar lagu fangareeyay hablaheenu ha waxbaan ku sheegay waa fanaan ka soo heesay ayaa heesteeda magaca noogu sameeyay marka aan waxaan aaminsanahay in niyoorta guurka hadii la cawaaqibtiisa la tariyo uu badan yahay oo dhaqankeena hortaagan oo waalid baa hortaagan oo gabadha hortaagan oo dhalinyarta laftigooda qaarkood shiwiis noqdeen horta guurku wax badan baa hortaagan kama hadlayna maanta cawaaqibta guurka hortaagan hadaa hay buug dhama kaaga soo sameyn karna laakiin waxaan sheegayaa dumarku iyagu naftooda runta uma sheeg waaqicana kuma noola gabadhu meel kale ku nooshayba hawo isnaab bay ku nooshay meel ummadka iska dhis maxay iskaytiin anigu waxaan aaminsanahay haddii maanta gabadha ku tiraado tuulo yaro degmo yaro kana diyaan degaay ma ila degiisa kulma degiso sandaqad baan haystaa ila kulma degiso ma fahamtay marka baahidii Soomaalidu wuxuu fahmay habluhu inayna baahnayn ninku baahayo waa yahay xamda